السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنالka daawaneysaan waa Nuur Official. Haddaad ku cusub tahay fadlan saar subscribe kambalelkan riix si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyaasha soo dhigno. maanta halkan waxaa idinku haynaa qiso ka kooban ilaa iyo 12 qaybood. tani waa qaybteedii koowaad. fadlan la soco. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ahaa mid uurka ku jiro markii aabahay lagu dilay xabsi ku yil gudaha Ogaadeniya, aniga oo uurka hooyaday ku jira 1 bil oo kaliya. 8 bilood uu aabahay mootanaa ayaa uurka hooyaday sii dhex jiifay. aabahay madi ayuu ahaa, waxa uuna if kaga tagay aniga oo markaas aan la ogeyn waxaa noqon doono iyo 2 wiil oo aniga iga waaweynaa. tolka aabahay ka dhashana waxa ay aad u jeclaayeen in aan noqdo wiil. hooyaday 9keedii ayaa go'ay, waxa ayna ku nooleed guri boos ah oo aabahay ka dhintay oo ka dhisan yahay 1 qol oo kaliya iyo musqul. markaana aan deer lahayn wax xoolana aabahay ma lahayn. waxa uu ahaa dalaal u kala suuqa xoolaha oo nolol maalmeedkiisa ka dhacsado. waqtiga aabahay noolaa siday hooyaday ii sheegtay, nolosha reerka aad ay u qurux badneed. hami sarana reerku uu lahaa oo ay ugu horeysay in booskanaga la wada dhiso. waqti habeen bar ah oo hooyaday hurdo ayaa nabar qabtay, kaasoo marba marka kale ka sii darayay. waxa uuna ahaa nabar fool ah. wiilka curadka ah ee hooyaday markaasna waxa uu jiray 3 sano. hooyadayna isaga ay maciin biday oo tiri cidi ii soo toosi. nasiib wanaag sida la ii sheegay, walaalkay uu dheeralowsanaa oo irada ayuu ka baxay, mana soo noqon. dhawaaqii ee qayladii hooyaday reer deris ah ayaa ku soo toosay una yimid haween u doona iyo kala orda. ilaahay amarkii islaan eeda noogu aadaneed unbaa tiri wiilkii kale aaway. hooyaday oo foolanaysa ayaana la weydiiyey hooyaday in ay cidi ii doon tiri ii sheegtay. warkiisana lama haayo. waagii markii uu baryay oo cadceedu baarka soo bixisay ayay hooyaday umushay. waxa ay markiiba ii bixisay magaca Salal, inkastoo dadka qaraabada ay jecleen inaan jeclaayeen inaan wiil noqdo. dhalashadeedii ka naxeen biyihii aabahay ugu dambeeyay in ay noqdaan gabar. haddana hooyaday aad ayay iigu faraxday oo gabar ayay u baahnayd. hooyaday haraadkii, gaajadii iyo weliba aradka gabadha cusub waxaa ugu darsamay wiilkeedii oo lumay oo aynan doonan karin. waxa aana lii sheegay in bakeeri caana ah oo islaam bahda aabahay ka soo jeedo u keentay hooyaday oo damacday in ay afka ugu qabatay, laakiin hooyaday bakeerigaas aniga ayay afka ay ku qabatay. barqankii goor la joogo 11 subaxnimo ayaa hooyaday meer beeshay. dadkii qaraabada ahaa ayaa duba isdhex maray oo wax isku soo aruuriyay, raashin, dhar iyo lacag. duurkii oo walaalkaygiina la helay ayay hooyaday soo meersatay anfaaciyo wax cunaheeda marana ugu horeeyay. la soco qaybta labaad.